بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ka hadlaynaa laba qodob mid waxa la yiraahdaa emergency parking midna waxa la yiraahdaa routine job waa parking-ka loogu talagalay inay istaagaan baabuurta damdamiska iyo shaqada aan maalinlaha ahayn ee marlaha ah shaqada marlaha ah iyo waxa la yiraahdaa emergency parking ugu haboon inay istaagaan baabuurta damdamisku okay imika sida uu ku wado taliyaha haysta ciidanka damdamiska dabku wuxuu sameeyay xerooyin baabuurtii ayuu xerooyin uu leeyahay galiyay laba saddex xero oo magaalada ku yaala dabku wuxuu fidayaa inta 5 daqiiqo ee xerada baabuurta ay ka soo baxayso ayaa dabku kuma sugayo dabkii 5 daqiiqadood ee gaarigu uu soo baxayo wuu fidayaa waxna wuu leynayaa waxa weeye emergency parking waxa la yiraahdaa baabuurta damdamisku waa inay afarta waaxooda magaalada wadooyinka waaweyn ay ku yeeshaan kanfasyo dabada ay la galaan si ay markiiba u dhaqaaqaan wadada u qabsadaan kaas ayaa waxa la yiraahdaa emergency parking gaarigana waa gaari loogu talagalay ama baabuurta damdamisku waa baabuur loogu talagalay in ay la dagaalamaan masaa'ibka iyo dababka waa emergency wuxuu leeyahay parking emergency la yiraahdo emergency parking ayuu leeyahay waxa uu loo sameeyaa oo hadii madaxweynuhu iigmadaan u sameyn doona baarkino emergency parking la yiraahdo oo ay baabuurtu ay istaagaan oo laba iyo kuruyada ka shaqeynaya kuru habeenkiya iyo kuru maalintiya okay waa kaas marka qodobka labaadna waxa weeye waxa la yiraahdo routine jobka routine job waxa la yiraahdaa shaqada aan maalinlaha ahayn ee marlaha ah waxay leedahay dhaawac waxay leedahay dhimasho waxay leedahay khasaaro hantiyeed khasaare aad u fara badan ayay keentaa qul iyo malba waxa loo baahan yahay in shaqaalaha reer Soomaaliland la baro shaqooyinka routine-ka ee ku soo dhacaya wasaaradaha ee ku soo dhacaya madaxtooyada ee ku soo dhacaya meel walba oo ay de shaqo taalo shaqadan routine-ki way soo dhacdaa marbay soo dhacdaa iyadoo la filay waxa kamid ah tii madaxweynaha kale musabixi waxa uu fakiray wuxuu siiyay waxaad keentaa i'tiraaf waxa uu keenay aqli ah wadadii toosnayd ee routine-ka ahayd wuxuu ku waayay i'tiraafku waa lagu waayay Soomaaliland waxa uu sameeyay wax la yiraahdo routine job ayuu damcay inuu ku keeno badiyo waxaanu bixinaynaa dhul buu yiri lagama fakirin isagu uu ka fakiray madaxweynuhu wuu ka fakiray khasaaraha ay keeni doonto 50 sano oo dambe 100 sano oo dambe inta markaa wuxuu u saaray aqoon-yahano ayuu yiri bal ka soo taliya arrinka aqoon-yahanada reer Soomaaliland ayuu u saaro wuxuu yiri ka soo taliya adduunkuna routine jobka waa mamnuucayba shaqada routine-ka la yiraahdo adduunku wuu iska mamnuucay i'tiraaf mar hore ku heshayna ma jirto cid mar labaad ku heli doontaan ma jirto marka aqoon-yahano sida madaxweynaha wuxuu aqal ku kordhiya muu helin kuna raaci kara de waxna ka dhimi kara okay taas waa taa marka shaqooyinka routine-ka ee caadiga ah ee shaqooyinka wasaaradaheena ku soo dhacaya waxa loo baahan yahay in la helo BTW permit to work shaqo kasta oo routine waxay leedahay warqad lagu qabto oo la yiraahdo BTW permit to work marka waxa ka mas'uula marba cid ay garanaysa shaqada ayuu ba sameyn kartaa hawsha warqadana qori karta waxaynu aragnay taliyaha ciidanka damdamiska oo isagu salandarkii bibi gaasta baqtinaya maynu arag shaqaalihii damdamiska oo iyagu cabaynaya ama buuxinaya salandaradii borderka iyo gaastaha maynu arag iyagu baqtinaya bibi gaasadii maynu arag tababaro uu siinayo ciidanka maynu arag waxaasoo dhan waxa loo baahayay inuu taliyuhu keligii noqdo master kulli maaha taliyuhu inuu master kulli noqdo maaha waa in ay shaqaalaha ka muuqata haday tahay qaybta ferreserka iyo haday tahay la dagaalanka dabkaba waa in training la siiyay oo shaqaalaha ka muuqda shaqaaluhu waxay qaban lahaayeen inuu isagu qabto maaha ahlan wa sahlan